qofka bini aadamka waa inuu noqdaa goolkiisa kama dambaystaay ilaahay siduu u raalli gelin lahayo jannada intan leeg siduu u heli lahaa hadduu your goals dhammaantood ahdaaftaadoo dham ay ku soo koobmaan guri yaroo ballaadhan oo aad sariir u kaga seexan doonto gawaadhi tiro badan oo aad mid u ka fuuli doonto iyo lacag tiro badanoo ku mashquulisa uun nin nimanka wax haysta Soomaaliyeed ka mid ah ee subax u soo galo cadhaysan dabeetana nin raggii ku dhadhawaa baan ku idhi odaygan maalintaan maadaama waa cadhaysanya maxaa ku dhacay wuxuu igu yidhi subax walba waxaa loo yimaadaa waxaa loo sheegaa kambani ballaadhan buu leeyahy kambanigiisa wixii ka lumaya problems jira subaxii lagula soo kala habeer subaxii markuu xafiiska yimaado report baa la siiyaa meel heblaaya intaasaa luntay qoladii xaggaasi waxoogaagaas way la dhunteen kuwa waxaasa ka dhacday halkaa mushkilada looma sheega buu yidhi subaxii markuu soo galo saaka 400 kun baynu faa'iidnay cidi kuma tiraahda buu yidhi laakiin negativeska loo soo ururiya markaa subax walba uu cadhaysay maxaad ka faa'iiday markaa hantida kuu biirtay haddaad subax walba cadho ka qaadayso iyo mushkilad jirta maxay kugu kordhisay ilaahay wuxuu ina yidhi wa ammaa man khaafa maqaama rabbihi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قفك مقياس كسوين وكالنوضة ننكا نفتي سكر يا بابا الليلي عن الهوى يعني ضبط النفس نفط وين تكنتروشها معنى دوام حي مثل أمثلة بسيطة عنا هداد ودك ور شوشين ويدا ومركي علوشو ديركتات راه بتايسر اسبانو باهني ساد انتي ادعوني جرتين كبدان ادعنتو binaadamku awal in buu cuni jiray intaasaa ku fillay waxay damceen in ka badan inay cunaan si uu in ka badan u cuno ayaa loo fakaro waxa la dhahaa appetizers baa laga horraysiiyaa marka birima intaad cunnada weyn cunin appetizers cun shahiyada ku sii furtaa si aad u hunguri weynaato markaad dibirtaaba haddana la leeyahay may hadda waxaad u baahantahay digestionka inaad dedejiso wax daaca kaa keeno hore oo maxaad marka hore isu tabirinaysa ما مركاغي هوري معناheed waxa weeyaan shahwatul batni bad inaad wax cuntaabad qasti ka dhigtay iyadaad comfortable iyadaad moodo wax lagu raaxaysto sida awgeed ba waxay noqotay in marna loo raadiyo wax ku laqsiya marna loo raadiyo wax maxay ka dajiye hadhowna lagu yiraahdo waxaad u baahantay saad u caafimaad inaad orodo oo boodboodo oo intaanoo marka inaad wax cuntaa haddaad control weydo waxay keentay noloshaadu dhan inay dib ku noqoto dad control weydo sadaradeed nafta bini aadamka waxana waa wasaa'il inoogu talagalay inay nolosha ku fidoonsano walidaalka mar haday nooca yihiin waxaynu u baahannahay koowaad waa dabdi nafs waa inaynu controli karno nafta inaad adigu harato waad controli karto maxaad cunaysaa maxaad fuulaysaa maxaad dhaqanaysaa xaggaad u socotaa waa inaad waxaad garataa noqoto saawgeed baa ilaahay wuxuu leeyahay war aakhira kuwa liibaanay wa amaa man khaafa maqaama rabbi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن حبان صار الشيخ الألباني الصحيح قلت الماما يوحولي وريانا ميدين كورماه مؤمنك بين هذا ومن أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم بنبولي وكيدتك النفي حول بكو آمين كرام مسلم كميدين شيغا وقفك أي كرنا بدقلان دتكو عرب كيسيق عنتيس رسول النبي يقول مجاهد كما يدين شيئا ومن جاهد نفسه في طاعة الله وقفك نفتي سكول الضرر إلهي طاعة ديس مهاجر كما يدين شيئا أبو النبي يقول ومن هجر عن الخطايا والذنوب وقفك إذا وحي يردن وحي الله صاكوبي قف بنا آدم ما نولشي سسيدو كنترول له وإيمانك سي واحد لقصي فيه إن إدتك كو آمين كرقف أمانة لينو نقون كره وإسلام نمديسي waxa lagu sifeeyay qof dadku ka nabad gali kara inuu noqon karo wajahaadkiisi waxa lagu sifeeyay qof naftiisa la dagaalami karo xadayn kara inuu noqdo oo hijradiisi waxa lagu sifeeyay inuu noqdo maxay qof dunuubtiya waxa kale ka fogaada idan waxaan leenahay koow waa adduunka inaynu qiimihiisa garanno waa maxay noo nool intaynu meeshan joogayna aan u baahanahay haddaad nafta iska sii dayso adduunkoo dhan bay u baahantay kuma deeqayo
haddaad se si riyaliya u xisaabtanto waxaad cuntiyo waxaad cabtayo meela degtaad u baahantay daadso wax ka badan waa uun inaad magac ka raadiso hebel waa bilyaneer in lagu yidhaha ama waa milyaneer ama lacag buu haystaa in lagu yidhaahdo waa magac ka raadinteeda badani mararka qaarkood dadku wuxuu isugu sheekeeyaa hadday mae bataan waxan baan qaban lahaa hortaa jiraba laga waa markaa unbay lexjecladu kugu sii badanaysa imika waxaad wada leedihin may anu haddaan xoolo heli lahaa kan baan samayn waxaas waa ammaanida dadka lagama fujiyo marka ay soo gasho waayo kama gedisnin inta haysata ee waa markaad faramarantay bay ammaanida tani ayaad is leedahay malaa kan iyo kan baad samayn lahayd laakiin markay ku soo gasho in yar uunoo ilaahay xoreeyo mooyaane wuxuumaad ku biiri doontaa kuwa kan ururinaya inuu la yidhahda hebel waa bilyaneer ama waa milyaneer ama waa taajir weynun yani magac ka raadiya dadku hadday yihiin dadaanay maadadu qiimo agtooda ku lahayna magacaana maad hesheen dee mujtamaca kugu xeeran baa wuxuu u badan yahay inuu waxa kan wax weyn u arkayo kaasi waa kow qaybtiisa labaad waxa weeyaan inteeda xalaasha in lagu tamatuco oo ilaahay wuxuu yidhi shahwatul farjigaasi oo kale waankixul ayaama minkum baa layidhi wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum kuwiina aan guur haysanin u guuriya waxaa la yidhi kuwii waaye ee uun duruufaadku ay ku yara adkaadaana walyastacfif waa aayadda ku xigta walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadli arrinku arri weyn maaha ciddaanay markaa u suurtogelinna ha dhowrsanaata baa la yidhi suuqa ha gasha lama odhanin waxaa la yidhi ciddaanay markaa u suurtogelinna sidan baa saxda ah ha dhowrsanaato shayga labaad aynu tilmaamayna waxa weeyaan shahwaatu nafsi lagu kontaroolaa inaynu ilaahay baryadiisa badino oo nebiyullaahi yuusuf ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay khatar la geliyey oo gabadh boqortooyada ka tirsan oo qurux badan oo kana iyo weliba dumarkii la waday iyo kooxahaas oo dhamm intay u heshiiyeen in xumo lagu rido in lagu talagalay laakiin wuxuu malaad ka dhigtay ilaahay baryadiisa oo intuu ilaahay baryey ayuu wuxuu leeyahay wailaa tasrif cannii kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min aljaahiliin ilaahayna markaasuu leeyahay fastajaaba lahu rabbu fasarafa canhu kaydahunna idan inaynu ilaahay baryadiisa badsanno oo ilaahay subxaana wa tacaala dariiqa saxa inuu inagu hayo oo xumaha dhammaantood inaga dhowro inaynu ku dadaalno waxaa intaa ku xigaa waxa weeyaan baabu sadd daraa'ic bay culammadu yidhaahdaan waddada xumaha ku geynaysa inaad awdo waddo kastoo xaaraan ku geynaysa inaad isku daydo inaad awdo oo haddaad mashaakilka u banbaxday inaad guulaysan doonto lama hubo ya naftaadu iminka markaynu halka fadhino haddii dagaal laynooga warramo nin waliba wuxuu isleeyay dee male waad jihaatami lahayd oo waad laakiin markay naga dul dhacdo inta jihaatami lahayd waxaan u malaynaya inay badnayn idan wax habboon inaad adigu marka hore iskeynin meelaha imtixaanku ka jira oo adiga iyo ubadkaaga iyo carruurtaada haddaad fitanka u bandhigto cidda guulaysan doonta lama oga saa ogeed maalan shahwatulfarji markii laga warramay waxaa la yidhi ishiina laabta khalwada iska daaya tabaruj ha samaynina waxaasoo dhamme waa min baabi saddi daraa'ic si ilaahay subxaana wa tacaala muraaqabadiisu inagu weynaato yaclamu khaa'inata alacyuni wama tukhfi suduur ilaahay waa og yahay ishu tayxadda baa la yidhi iyo laabtu waxay qarinaysa rabbi waa og yahay subxaana wa tacaala idan ilaahay weynidiisu inay nagu weynaato shahwaatu nafs waxyaabaa lagu xadeeya waxaa ka mid ah cibaadaadkaagu inay bataan oo naftu haddaad khayrka ku mashquulin weydo sharkay kugu mashquulinaysa naftu haddaad firaaqaagu hadduu bato dherigtaadu badato dee balaayadana inaad u banbaxdo waa suurtagal haddiise nafta aad khayrka ku mashquuliso wakhti uma helayso waxa kan
سادراديد با إلهي وحولي واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة أوغا با إلهي لي صلاة وحيد كعلنيسا الفحشاء والمنكر حمها يزندا يقولون قدام بيد كعلنيسا إذن قفك كلما وعبادة بتصده والباب لغو أوده شهوات نفسه نوعي دونان بها النقطان وحكمت إلهي القرآن كوكوت المام واستعينوا بالصبر والصلاة كالميست با إلهي للصبر ككو الصبر كو آية الإمامة مركز إنه كور رميني بعد العصر كي وحين صوت المامني إمامني ماذا السريع الإسلام كي يقومانان هقامين تديميد وحلقوا قارو إني كمت هاي محي لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ويقين يعقيد قلبي قدكته هي الصبرات كالميسة تبين هذا ويصبرك بكل أنواعه هو عبادة إنك صبرته شهوات نفسك إنك صبرته مقادير تي ابتلاءات كإنك صبرته بكل أنواعه مركز قدرته عمل كاغو إنه نقضه صدو عمل صالح أو نقضه الصبر باكين صدا سأوجد با إلهي وحينيدي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صبر هي الصلاة إنه كالما يسنو وراك إلهي وحينات المامية آخر مؤمنين تليبان تكويت قد أفلح المؤمنون تبتنا إلهي وحكسي في الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظ يعني وحين كسو والرمى النور دنبا إلهي كسو أروري وحليد وقوة مؤمن كالليباني وقوة صلاة دودو معناها والسمين سيو خشوع يا إلهي سبحانه وتعالى كحدا مؤمن كقول استبال ليدي وقوة كان مالها اللغو غيا هذا الترد يو وحا اسكيتكي وهي هداد كقيب قشو إنا الدور سلام بيو بدلتي هداد مالها فريساتو فدي كدرك هداد تكتو آخر كادقو أدنا دعالك كوضو ما تسارك دونتا كولي غيركي إنا ماشا كو يرم هاقانو أسرادا كدعنا وهذونين آخر كدي نعمتك قليسة لكن هداد اسكديسو ماشا لغوغي وحان بعنين لغو هيو والدور سلانيسا زكاة ككن زكاة waxa loo yiri bay leeyihiin ba namaga waxa ka sii muhiimsan tahaarada bay leeyihiin waa qofku naftiisiibu bukhligii iyo wixii kaga tahiraya oo inuu qofku dhiibista barta iyo wax bixinta iyo farjigiisa inuu ilaashado waxaas oo dhan waxa ay tilmaamayaan shahwaatu nafsiga dhowrka quraanku uu soo tilmaamay sidii maxay uu qofku ugu xoroobi lahaa idan ayuha alahibba warka kooban wuxuu yahay desireskani waynu u abuurayiin waana taa maanta biologically la tilmaamaya in la tilmaami karo marka nashwada noocaasi ku qabato maskaxdaada qaybta active-ka ee shaqaynaysa gabadh markaad aragto qaybta shaqaynaysa xoola markaad hesho qaybta shaqaynaysa caruurta yaryar ee jacaylkoodu markuu ku galo qaybta ku shaqaynaysa quruxda iyo isdhiska iyo waxa markaad samaysiyo ziinada iyo fardaha iyo waxa qaybta ku shaqayn yani waxa la tilmaamay hormoonadii jirkaaguna inay maskaxda awaamirta bixinayso ay soo daynayso ee maskaxduna inay shaqaynayso that means waa wax kugu abuuran waa mawduuc imtixaan baynu leenahay marka imtixaan العملي حكي عقدي مركا لغا يمادو الذين امنوا وعملوا الصالحات وماشى لغا ربا عملك الصالحين وكركبمو سيد رادد وحين لeenahay عندي سايلسكني waxay u baahan yihiin in la xadeeyo wad u fakarto adeyntaasina kow sharcigu wixii una faray yaalo ama ka hortag ha ahaadaan oo taxsiin koowaad waxyaabaha precautionska aad sii samaynaysa marka horeba waxa ka fogeynaya ama ha noqoto cibaadaadka aad badsanayso ama ha noqoto naftaada inaad train garayso ka adkaatido hawadeeda aad controli kartid ama ha noqoto xaqiiqada adduunkan aynu joogno aad si fiican u fahamtid waqti yar baad noolaan doontaa maxaad qabaa waqtigaa yar waqti yar ama madaxweyne noqo ama maal yeelo ama miskiina haw in yar uma joogaysaa tan waqti badan maaha intaa yarna desireskani way kugu abuuranayaan
marna ba dhergina maysid mid intuu buuxsamaad salaada kaasi wuu dhergay ma jirto laakiin waa naftu saad u kantarasho dumar haddaad mid guursato laba guursato saddex guursato haddii lagu odhan lahaa wad iska wadi lahayd baahida uma istaagto mid baan guursaday labaan kuma istaagta xataa laakiin waa lagu kontrooli karaa waa waxaad at least intii aad rabtay ku gudan kartid cunadu waa taa aynu nidhi waa dee waxaabay yidhahdaan caloosha waa iska elastico waa uun tatawasac way sii ballaadhan kartaa adiga arkay dad la leeyahay gurigaa lagu jabiyo waxaa lagu soo saaray bini aadam oo lagu wado loo dalbado bahalladan wax qaada waa qof bini aadama yaa haa waxaa loo dalbaday maxaa la yidhaha kriin dhan oo kuwan gawaadhida qaada ah inuu qofkan qaado waana cunno waxa sidaa u galay wax kale maaha gacantaa iyo bahalkaa afkaasi isugu waday ayuunbuu sida tan noqday waxaan u kale ku dhacayna ma jiro waa uun si uu cunayo sawaakaada waa kaa bini aadamku intuu xadda dhaafay marna ordaya marna ku guraya caloosha idan soo duuduub waxaan oo dhan waxaan leenahay waxaynu u baahannahay inaynu dib u eegno sidii sharcigu sheegayna wixii sharciga aynu ku fulin karna inaynu ku fulin oo dhallinyarada loo guuriyo ciddii loo guurin karo la baro sidii ay guri u yeelan lahaayeen meelaha imtixaanaadka iyo shahwaadkani ka jiraan laga kantaroolo adigu naftaada aad kantarooshid maalkan iyo waxaan inaanu ahayn waxaa loo nooliyey inaynu wada fahmno waxaynu ka rabnaa inay noqoto uun intii aynu ku noolaan kari lahayn ama nolosha aynu ku fudaydsan kari lahayn markaan soo duuduubo saan hore u soo tilmaamay qur'aanku أي مشكلة إنها حيث تدوي مشكلة نفسانية هالنقطة أما ميد بلشيد هالنقطة أما ميد عقيدات هالنقطة وننزل من القرآن ما هو شفاء نولش وحي وباهناي دوردن قرآن كاسبا إيا الدوين إيا لكن وحي نوباهناي قرآن كاين نسفي عنه فهمنا ومشاكل كما أنت الدنيا كتشرو أوردن إنها كما بدنا إنها كان كما بدنا إننا وحينو من مال إنتن بالله يسكو يتحامى مغريات كيديالين أديتها هي شهوة الجنس دربي قد كسوري كتاب وحاكو ويري يبحل كيرات جيبك كسدتي يوح عردمي وحنفت بين آدم كاكي عيني وبديه وحايشا دوارك تاساسي وبديه هدي نغطو شهوة المال dad kan iyo classeska u sameysaynayo tabaqaadkan iyo waxaan oo dhami dadku wuxuu struggle ugu jiraa siduu tabaqadan ku jira uga bixi lahaa tabaqada ka guriga ballaaran halaga guriga yareed ku jirto struggle ka kood waa guri ka weyn si aad u degi lahayd adoono guriga noocaas ah aad u degi lahayd gaarada wata hadhowna helicopter saad wadan lahayd adigoo bahana oo dhimanaysaa adoo dhergin ayuu marid ka tagi doontaa idan waxaan leenahay war waxa kan lagama dherge aan baranna sida loo kontrolo oo lagu kontrolana wixii sharcigu sheegay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabigu ay noo tilmaamtay intaasaan ku soo koobaya sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin